المعرضيال آبيال وحصول جدنا أقصي أسوأ شيء وأصل الرمان وحوية فرع وحيابها أصل وحاول يمسن إلا هلا بالجنان سياسة والله فدرك أما أصل كشيء كسر ما كان لنا هاي بالجنان سياسة وإن حديق وفوضى يسلكاكو أي وذا الشقي وعيان وحبير أتون تجول لجاري كرم الله وحلا مركا سياسيين دفنكا الموجودكا كان عصتها يبنى الوقت وحويان عبيع الإسلاميان وأي والشقيان وأي وطش السميان ورقف نقونا قدمين آي ونبين أنا وحا قبطي سوى نفتقيس ووحي قبطي وليا أننا قبنا صوبت إلهي معبودك وحا أوليا إنا خلقناكم إنا جعلناكم إنا أرما إلهي نقول عليها أنك بشرك إليه نوتها عشر marka waxaan noqonayaa bilaadaado sida maanta suduubnada degmada baaldiri taariikhdeeda ah suduubnaantii lagu yaqaanay ee hadda ka joogaan siyaasiyiinta hadda ka hor soo maamushay degmadan ilaa shirmagistigii waasaal mustafa maxamed guureed intaa kadib dheer maxamed iyo rag badan siyaasiyiin soo maamulaan kale ay fadhiyaan waxaa kaloo maanta aan nasiib aan u helnay xirwareejintan in intii isbedelka ka dambeysay hogaamidii soo maamushay adiga weliba ku alla barya cabtaha maqnaa dadka jibilisa ku maqnaa inuu ilaahay kusoo hagaajiyay markaa u soo baxay aanti koowaad marka la hadhaadisay u joogaan kuri aad iyo aad baan ugu farxay markaa hogaamintii afarta isbedelkeedeediyeen inaad maanta madarka ku wada dhamaystiranahay waxay u tahay farxad weyn iyo isku duubnada iyo wada shaqaynta bulshadeena sidaa u bilaabateen insha allahu kariim inaad usii dhamaystiri doonto oo cid kasta ku weyn ku yar cid walba meesha iyo xaaladda iyo fikirka uu rabo inaan gashi aan ka dhiganayo iyaan ballan qaadaya shacabkan aan ballan qaadaya aan u ahay haddii walaale markaa inta la helo oo midnimo iyo deganaan siyaasadeed la helo oo dhaqankii iyo maamulkii iyo culimadiinkii iyo ganacsatadii iyagoo shacabkooda masaakiinta ah ee cadowga koowaad ay leeyihiin uu yahay faqriga uu yahay haddii ay ka midoobaan waxa aan hubaa khayraadka ee degmada baadida ay leedahay in degmo lamideeda deegaankeena jirma qabaano haddii markaa loo jahaysto in laga wada shaqeeyo dhaqan ahaan ka maamul ahaan ka dumar ahaan iyo dhammaan haddii fikir nagaysan laga qaato cadowga kale ataan leenahay aynu u aragno inuu kaayo waxaan hubaa in degmadeenu ay bixiso caawimaada isagaan rajeynayaano kuna haweenay anigoo eedaya dhulka iyo baaxadda iyo khayraadka uu ilaahay siiyey marka insha allah kariim maadaama guddoon ahay afartaa hogaamineed waxa aan habeen iyo maalinta diyaari doona insha allah kariim in aan u dhimriyo dhegaysto kuna dhamo waxay dhahaan yaa ballan qaadaya mar labaad haddii codsigaa markaa adiga barasheen bulshooyin oo intaa ku dadaashaan wixii dhaliila wixii xamasho ah wixii kale diyaar baa u nahay sababtoo baalin shalay 3 sano waxay u buuxdaa taasaas markii aan ahaa madaxa beeraha degmada baadili taasaas 14 xilkaa kana kaga tagay si loo qoray cid ka soo garanaysa maalinta xilka tagaa maanta lagu bilaabay la dab jooga marka taayo dhib male laakiin waxa muhiimada ah waxyaabaha kale baan dhigno inaan bulshada sida aan ugu taraasulo lahayn aan ku diyaarno insha Allah haddii markaa taasi noo suurta gasho waxaa imanaya in laga shaqeeyo oo lagu mashquulo afar qodob oo ah aadamaha ilaahay uumay oo ah tiir dhaxaad ah waxaan ugu horaya qodobka ugu horeeya wuxuu yahay marka la helo deganaan siyaasadeed oo la isku xog waraysto oo lagu tashado waxaa imanaya amni waa shaki la'aan amni mar haddii uu yimaado oo amnigii la helo waxaa shaki la'aan loo gudbayo
la dhihi karo xuquuqul insaan in la ilaaliyo xukuumaddeena isbedelku waxa ay bilowday ogsoon tihiin madaxweynaha dowladda Soomaaliya mudane Mustafa bin Umar ugu sareeyo waxa laga qorayo iyada oo xuquuqul insaanka iyo xaaladda maanta sida loo turjumayo ay sharciyeeyeen haddana maadaama xilligii kala duwanaa ee dalweynaha Itoobiya soo maray ee laga soo bilaabo boqortooyadii waxa ku xigay xilligii margii waxa ku xigay dimuqraadiyadii Tuuriyahay dimuqraadiyadda waaqiciga ah oo maanta aan walmaal haya ku xigta intaas caddeeyay waa la cabri jiray inay hadlaan oo waxna diidi kara waxna ogolaani karaan shacabkooda maanta ay bartaan iyo wax kasta loogu ogolaaday sharciga in la hadlo loogu ogolaaday waxaana taasi ay dhiirigelisay in dowladda dhaqankan ku dheersanay in maanta markii waxyaabo la saliiday yeelmeelo la dhaho oo laga baxo waxa ay dhalisay in mudada sana shacabkeena ay bartaan inay waxna diidi karaan waxna ogolaan karaan cidna ayna ku qasbi karin waxay diideen si la mid ah xuquuqda shakhsiga ee nashalay oo daraarna waqti aan markaa bilaadanka uma hadda ilaahay ma qamato horay maanta shakhsiga safariyadu waa sida la garanaya cabsidu ninka soo markay farta ku ayay tolo maxaa lagu dhigi maxaa lagu oran tiira maanta aan ka baxnay sagoo xora oo la tuurayo la dhibaateeyo isagoo gaadiga madaxweynaha iyo dalka taasina waxa sababtay in shacabkooda waxna ay diidi karaan waxna ay yeeli karaan taasay iyagana ka dhalinaysa waxa kale oo ka garta arrimaha maamulka suuqa kulliyan wada garanna maamulka suuqa sideed qodob ay xambaarsan qodobka ugu muhiimsan waxa weeyaan cadaalad dadka waxa dad kara degmada hadda aan dhaano hal deeqsimaad istaraatiiji salahan shaqaale dadka aqoonyahanka soo qaybiyay ma qaadi karo mana xambaari karo istaraatiijka maanta aynu leenahay haddii la dhaho dhaqaalaha loo dhawiyo dhaqaale ma deeqro laakiin qof kasta waxa deeq kara oo ku qanci kara waa cadaalad waxaan ilaahay waqtigaan insha Allah kun nagu guuraan ku rajaynahay in dadbaana ka badan ee hadda meesha laga farayay inaan cadaalad inta karaanka yaga ilaahay boqolkeed waa cadaalad laga leeyahay laakiin inta karaanka yaga inaan cadaalad aan tali karno aan ku dadaali doono insha Allah kulli oo ilmaha aan dhalay ee cadaaladiya iyo dhammaan shacabweynaha degmada Baadiri iyo xayawaanka ku nool inay mid noqonayaan insha Allah kulli waxa weeyaan aragtida iyo hadafkeeda boob kale marka yadna farca ka ah hadii la helo deganaan siyaasi waxa weeyaan bixinta gaar ahaan xukuumadda maanta xisbigeena intii waxa uu qaatay 2017 qorshaha koowaad labaad saddexaad afraad waa bixinta oo loo soo maray shalay baan ka tagay degmada adeeg bixinta wada garan halka ay taagaysa ay tahay anoo shacabkayga abaabulina dhaqankayga hawlgelina culimadayda hawlgelina waxaan ku dadaali doonaa insha Allah adeegyada kala duwan in aan sida halka la sii gaarsiiyay ay taagan tahay inaan sii xoojino oo ka soo baxaan degmada Baadiri doctor badan injineer badan sababtoo saalayaal badan doctor oo hadda garna ka baxay albaxay ka baxay beeqa ka baxay dadabara ka baxay codasha ka baxay iraysa oo maanta wax badan soo tiraya iyo jirmaad deegaanka iyo degmada oo la garna hebel qofku maanta haddii wax barto uu xoogay akhriyo waxa la hubaa inuu gashi ku soo celiyo insha Allah kuri wali annaga qofka koobaad wax barashada xooga saarayna waxaan iyadana adeegyada dhinaca adeeg bixinta marka inaan tarbiir gelino haddii Allah uu qadaro iyaan iyadana xoojinayna haddii Allah fariinteeda kala soo diiwaan hawayaan degmada waxa laga bilaabay caymiska caafimaadka waa degmada waxaa la soo yeelay caymiska caafimaadka laba arrimood bay faa'iido leedahay in aan lagu baraarugsanaado oo xubin kasta oo halkan maanta u fadhiya uu gaarsiiyo bulshadeena meesha ugu dambaysa laba arrimood faa'iido ka leeyahay caymisku arrinta koowaad waxa weeyaan protocol dadban weeyaan lagu baraarugsanaado waa codsi waa naga codsanaya bari
meelaha laga guuliyo kasii marka la guuliyo telefoonka meelaha laga guuliyo intaa inta laga waday meelo badan bay Ethiopia laga wadaa oo sanbala la qaatay yani meelo tusaalayaal la qaatay marka hore oo barra gobolkeena ku jiri jirtay iyo qabri gayax waxaa hadda nasiib weelay oo dadweynaha oo xagga gudoomiye degmada wana xasan faarac cali iyo madaxa xafiiska caafimaadka dayib xasan daayir ay halkan ka fureen oo weydeen 7 koob waa muhiim qodobka koowaad waa tirakood nin kasta inuu tirada uu leeyahay ku nool yahay maadaama wax lagu qaybsanayo saamiga dhaqaale saamiga siyaasadeed inta lagu qaybsanayo waxaan soo jeedinayaa in lagu bareegsano waxa ka hoos faa'iido u leeyahay caafimaadka damaanad ilaahay baa dhimashada waarkeeda iyo geerida waarkeeda laakiin xanuuno aan la tacaali karin qof miskiina maanta ku dhaxnool waan ognahay hayteena dhaqaale maanta waa rogsoonaa qof badan oo hadda la tacaalan oo gobolyaal badan ku ah wadka cidina celin karto oo maalinta ay gaaraan jaa ajaluha laa yastaakhiruuna saacatan walaa yastaqdimuuna waa rogeena qaalka ilaa waa rogeena laakiin qofku gobolyaal badan uu yahay iyuu kaga badbaadaya taana in lagu baraysano soo jeedin lahaa waqti gaaban hadalkii gaaban baa lahay waxaan dhammaantiin inaga mahadnaqaya sida wanaagsan ee ligawale walaalnimada leh isku duubnaanta in la sii wado waxaana isku qolada ugu dambeyn haween sida haddaba la sheegay waa laga maarmaan dhaqanku waa laga maarmaan waan aaminsan dhaqanku waa tiirka ugu muhiimsan ee bulshada ku talaabsatay waan aaminsanahay waxaan isku dayaa weliba anigoo kaadriga kala soo insha Allah kariim rogrogi doona in golo gurtiyo midaysan oo dhaqanka degmada baabili ku samaysan yahay oo marjic loo noqdo ah oo basha aan sameeyna ah oo isku dhafo oo dhamaystiran barbuusha baa diyaaraya kaamriga hordhigaya haddii la yiraahdo tirada aan ka dhigayno dhaqankeena maadaama uu badan yahay tirada aan ka dhigayno xaaladeeda wada shaqayntooda habka shirka ku gali doono iyo maanta watiina ka balan qaadaya idinka ahaan bulsho ahaan dhaqan ahaan maamul ahaan arrinkaana nagu garabsaartiin waa codsa anaga codsano xilkooda wada saaraya dhammaanteen far kale aad forma maydo shakhs kale aad waxma qaban karo qadar ilaahay baan ku nimid qadar ilaahay waan kaga tagnaa ama malkulmeel iyo meel baan kaga tagnaa ama dalcaad baan kaga tagnaa ama dhimid baan kaga tagnaa saddex diyaar baan nahay